Kijana wetu Mohamed Nurdin Yusuf Haji na mke wako Jamila, wazazi wenu Nurdin pamoja na mzee Abdikadir, ndugu wananchi wa hapa Masalani, wananchi wa hapa Ijara, ndugu wananchi wa Garissa, Northern Kenya, wa Kenya wote pamoja na marafiki zetu waliotoka mbali, hamjambo. Assalamu alaikum. Mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia hii nafasi. Tumefika hapa kwa sherehe hii ya muhimu sana ya kijana wetu Mohamed na rafiki yake, sasa mke wake Jamila, na tumekuja hapa kama wazazi na vile vile kama marafiki wa jamii hii ya mzee wetu Mohamed Yusuf Haji. Wakati Nurdin alinieleza ya kwamba kijana amefika umri, nikafurahi sana. waxaan rabaa marka hore inaan salaamo madaxweynaha William Ruto iyo qof walba baradkoolka uu ku fadhiyo. salaanta ka bacdi waxaan rabaa inaan u duceeyo qoyska oo Ilaahay isuki barakeeyo. ducadaas ay maanta inaga mudan yihiin. maxamedna mas'uuliyad baad qaaday. hal arrin waxaan rabaa inaan idhaahdo Soomaalida Kenya, annaga garanayna dhibku waxa uu noo geystay. nabad baad haysataan, horumar baad haysataan, madax wanaagsan baad haysataan. waxaad ku dadaashaan midnimadiina iyo khilaafkiina inaad yareysaan oo aad wadankiina iyo dadkiina daacad u noqotaan. shayga asalkii waa midkaas. annagu daris baan nahay, cid walba waan isaga dhownahay, isku mid baan nahay. ducadiinaan mar walba waan u baahan nahay. madaxweyne Ruto stadium si ugu tagay wax badan buu ka bedelay. waxaan rajaynayaa Soomaalida maanta dhisan ee dawladda ah Kenya asalo in Bagati waa lagu dhisay. wixii ka yimaada iyo wixii ka halaabana waa wax mar walba laga doonayo Kenya inay Soomaaliya u taagnaato, sababtoo weli gacmo qoyan baa ku jira. aad iyo aad baad u mahadsantiin. Allah idin barakeeyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.